in heshiiskaasi dhexmaray Somaliland iyo DP World uu yahay mid taariikhi ah isla markaasina horumarinta dekada Berbera ay tahay qodob muhiim ah oo saacidiya horumarka wadanka Ethiopia xukuumadda federaalka Ethiopia si weyn ay u soo dhaweynayso sida wargeyska Addis Fortune ka soo xigtay mas'uuliyiinta wadanka Ethiopia wargeyska ka hadlaya xilliga DP World ay soo gashay mandaqada geeska Afrika ayaa waxa uu sheegay in shirkadaasi ay markii ugu horeysay soo gaadhay bariga Afrika 2000 magaalada Berbera uu sheegay in 937 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan tahay magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu sheegay xukuumadda Addis Ababa inay u aragtay maalgelinta magaalada Berbera inay tahay albaabka labaad ee ugu muhiimsan ee Ethiopia ay wax soo mari karaan marka la eego badeecadaha badan ee Ethiopia ay la soo degtay kuwa ay dhoofiso iyo sidoo kale kaalmooyinka dhinaca bani'aadanimada ee loo wada dhinaca wadanka Ethiopia wargeyska Addis Fortune soo xiganaya agaasimaha guud ee u qaabilsan maraakiibta wadanka Ethiopia oo lagu magacaabo Mokane Abra ayaa waxa uu sheegay waqti xaadirkan dekada magaalada Berbera inay awood u leedahay dejinta badeecadaha sidaas u badnayn taasoo qiimaheeduna uu sareeyo badeecadaha si la dejinayo balse waxa uu sheegay dawladda wadanka Ethiopia si weyn u soo dhaweynayso dekadaasi magaalada Berbera in la balaariyo xooggeeda kor loo qaado taasoo uu sheegay in si weyn wax uga bedelayso ku xidhnaanta caalamka wadanka Ethiopia dhanka kale wargeyska Addis Fortune ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee wadankaasi Ethiopia ay wadanka Imaaraadka Carabta u safreen sanadkii 2015 bishii Oktoobar waxaana uu sheegay in la kulmeen maamulaha Imaaradda Dubai si ay ugu dhiirigeliyaan in dalkiisu maalgashi ku sameeyo dekada magaalada Berbera wargeyska Addis Fortune wali soo xiganaya mas'uuliyiinta amuraha dibadda wadanka Ethiopia ayaa waxay sheegeen inay si weyn u daneynayaan in Imaaraadka Carabta ay maalgeliyaan Somaliland halkii uu ka maalgelin lahaa Eritrea sidoo kale waxay sheegeen xukuumadda wadanka Djibouti inay ku wargeliyeen siyaasadda laba geesoodka ah ee ay ka aaminsan yihiin dekadaha Berbera iyo sidoo kale Djibouti ugu dambeyntii wargeyska Addis Fortune ka soo baxa magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu sheegay in hanaanka casriga ah ee la qorsheynayo dekada magaalada Berbera inay ku soo kordhiso shirkadda DP World inay tahay mid rajo weyn gelinaysa dawladda wadanka Ethiopia inay halkaasi isticmaali karto sida uu sheegay ninka lagu magacaabo Wargane Gabayahu oo ah wasiirka gaadiidka ee wadankaasi Ethiopia dhanka kale warbaahinta Britishka BBC ayaa waxa ay warbixin ka qoreen dekadaha Djibouti iyo sidoo kale Berbera waxaana BBC ay wareysi la yeelatay maamulaha dekadaha iyo sidoo kale cashuuraha ka caagan ee wadanka Djibouti kaasoo isna markii ugu horeysay soo dhaweeyay maalgashi kasta oo lagu sameeyo dekada Berbera inay wax ku ool u tahay mandaqada geeska Afrika horumarkeeda haddii aynu eegno warbaahinta dhinaca Aasiya bariga dhexena wargeyska loo yaqaan The National ee ka soo baxa wadankaasi Imaaraadka Carabta ayaa isaguna waxa uu warbixin ka qoray isla arrintaasi ku saabsan maalgashiga dekada Berbera iyo mustaqbalka sida laga rajeynayo inay wax ku soo kordhiso bariga Afrika waxaana wargeyska The National soo xiganaya maamulaha guud ee shirkadda DP World oo safarkiisii Hargeysa kadib la hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu si aad ugu kalsoon yahay maalgashiga dekada Berbera oo kamid ah khayraadka dahsoon ee qaaradda Afrika ay leedahay gaar ahaan bariga Afrika waxaana uu sheegay shirkadiisu khibrad ballaaran ee u leedahay la macaamilka wadamada Afrika iyo sidoo kale khayraadkaasi maalgelintiisa waxaana wargeysku soo hadal qaaday shirkadda DP World inay qalinka ku duugtay xilligaasi 442 milyan oo dollar oo uu dhigay heshiiskaasi ay la gashay Somaliland in la horumariyo dekada magaalada Berbera taasoo mustaqbalka la rajeynayo inay noqoto meel isku soo xidha ganacsiga dunida iyo sidoo kale baahiyaha ay leeyihiin wadamada Afrika ee dekadaha aan lahayn oo halkaasi isticmaali doona ugu dambeyntii warbaahinta caalamka arintani ka warantay waxa kamid ah wargeyska inta badan dhaqaalaha dunida ka faallooday ee loo yaqaano Wall Street Journal ayaa isna waxa uu daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay DP World ayaa waxay aqbashay inay maamusho dekada Somaliland muddo 30 sanadooda isagoo isla warbixintaasi ku sii daadegaya waxa uu sheegay in marka ay dhamaato maalgelinta dekada magaalada Berbera ay bariga Afrika ay noqonayso albaab cusub oo labaad oo u furmay wadamada aan dekadaha lahayn taasoo si weyn u sii xoojin doonta caalamka isku xidhnaanta iyo sidoo kale gudubka maraakiibta waxaana ay sheegeen Berbera inay soo labayn doonto ama ay soo raaci doonto dekada koobaad ay ku wada xidhan yihiin wadamo badan oo ah ta wadanka Djibouti isla wargeyska loo yaqaan Gulf News isna ka soo baxa wadamada Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale wadamo kale oo Carbeed qaarkood waxaana uu daabacay warbixin uu ciwaankeedu ahaa shirkadda DP World oo qalinka ku duugtay 442 milyan oo ah maalgashi ay ku sameynayso Somaliland Gulf News ayaa waxa uu sheegay shirkadda DP World oo ah mid ka shaqeysa wadanka Shiinaha ilaa wadanka Brazil inta u dhaxaysa inay qalinka ku duugtay heshiis dhigaya inay maalgelin 442 milyan ay ku sameeyso Somaliland gaar ahaan dekada Somaliland ku taale Berbera
warbixinta wargeyska waxa uu sheegay in labada dhinacba ay isweydaarsadeen saxiixa heshiiskaasi oo dhigaya maalgelin iyo maamul si dekada Berbera oo haatan mid aan sidaasi u awood badnayn in loo rogo mid ay gobolka oo dhan ku wada xiran yihiin